inanta waa la kufsaday waana si xun markii la kufsaday si xun baa loo dilay aad iyo aad gudin baana lagu dilay qoortaba waa laga jaray meel u bad qabta looma yaqaan wax allaale wixii labada garab ka sareeyay malayaal baanu nahay waanu dulmanahay maydkayagi 4 cisho ayuu yaalaa oo markaa cadaalad aan nala sameynaynin waa qaar ka mid ah ehelada iyo sidoo kale haweenweynaha gobolka Togdheer waxa isugu soo baxay shaariciyada kala duwan ee magaalada Burco kadib markii la keenay habeennimadii xalay magaalada Burco haweeney kufsiyo dil loogu geystay gobolka Saraar haweenka ayaa sitay sawirro kala duwan oo muujinaya qaabka argagaxa leh ee loo dilay haweeneydaasi waxayna sheegeen in maalintii afraad uu meedkoodu u yaalo iyagoona dalbanaya cadaalad loo mariyo eedeysanihii geystay falkaasi oo imika gacanta ugu jira hay'adaha amniga ee gobolka Saraar ilaahay baan nooshkata u nahay dawladda Soomaaliland baan nooshkata u nahay wasaaradaha nooshkata u nahay cadaaladda nooshkata u nahay laba kufsi baa dhacay laba maalmood oo isku xigta inaan mayda talaagada noogu jirta mid hore jaacad ka qalin jabinaysa waa la kufsado waa la dilay inaan ragow waxa dumar waaysan baa loo baahan yahay inaanu idin la dagaalano oo dhagax idin kula dagaalano iyo ina xuquuqdayada halka dhigaysaan kala doorta idinka rabaa waxaanu rabnaa waraabayaasha in loo dilo inaan maydka lacag laga qaadan inaan mag laga qaadan inaan wax kale laga qaadan inaan taayare miskiinada ee la dilay ee la jarjaray ee gudinka lagu jarjaray waxaanu leenahay ninkii dilay axmaqaa dilay ee nafta ka jaray ee maxaa sheegay nafteedu u qoonsaday sharciga islaamka la horgeeyo si dhaba waxa looga qabto waliba iyadoo la hayo oo gacanta lagu hayo oo caynaba dhexdeeda lagu hayo ayaa waxay ka murmayaan dadku ka doodayaan isagii maaha iyadoo ogyihiin oo mariyo dhiig laha lagu hayo oo dhaawicii inanta isu geysteen ay markay la dagaalamaysay la rafanaysay iska badbaadinaysay uu u geystay lagu hayo nabaradii ayay haddana waxay ka doodayaan inaanu isagii ahayn marka waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland waxaanu leenahay inanta yar xaqeedii hal la keeno oo ninka hal lagu hordilo maydka yaa la naga aasin waayo tani maanta kaliya may dhicin waa markii labaad Ugbaal Cali baan ogeyn iminkana Hodan Siciid Aadan baan ognahay inanta kale iyada caynaba kiiskeeda lagu ayaan ognahay maxaa caynaba taa kiiskeeda loogu hayaa hala soo dhaafiyo waxaan madaxweynaha Soomaaliland ka codsanaynaa kiisaskan istaba jooga ee raggi nagu noqdeen arxalayaasha ee nagu noqdeen waraabayaasha ee maanta ay inantaasi u taalo kiiskeedii inta la kufsaday ee sida doona laga yeelay ee gudinta lagu jarjaray in kiiskeeda maxay tahay hore loo soo dedejiyo hadduu yahay ninkaasi ninkii kufsaday gacanta imka loogu hayaa ay ugu jirto dawladda gacanta uu ku jirana in isaga degdeg loo qisaaso haddii kale aanu ahayn cidii maxay tahay waxyeelaysay inanta in degdeg loo soo qabto war dalka iyo dadkaba u tura war noo tura habliini baan nahay hooyooyinkiin baanu nahay haddii aydan noo turayna waxaad ogaataan inaad idinkuna kuwa dhashaan ay kuwa kale dhurwaaya u soo bixi doonaan ay geynna doonaan abaalkoodan marin doonaan sidaad anaga noo marisay abaalkayaga iyo dhibta aad noo geysatay ee aanad waxba noola hadhin hablaha Soomaaliyeed hamidoobaan markii sida loo dilay waa meel geed baa hoosti laga helay waa lagu dilay saas gudinta lagu jarjaray waa laga soo qaaday geed qalanqal ku dhooba sida beerka loogu dhigo loogu riday markii loogu riday waxaan helay sidaan u raadinayay raadkeedu u waday aribaana la joogtay sidaan u raadinayay 10 habeenimo qaar ka sare labada kilkilo wixii ka sareeya ayaa mariyo guduban yihiin inta kale waa qaawin marka waxaan u yeeray dadkii gobolada magaalooyinka wixii magaalooyinka ugu dhawaad dadkii joogay ayaan isugu yeeray wixii ciidan ahaa igu yimina waa ka joojiyay raadkeeda waa layla fuuliyay subaxii baan meeshii laga soo saaray sidii bay hadee xugmaayo nimanaan isla markaa de waxba idin qabanayaan ugu yimaadeen aasaba la yiri waanan markaan aasimayno xukunku aasabay ku aasimayno markuu nidhi waanu soo qaadnay shalaanu soo qaadnay waa maalintii ku afareed ee Jimce weey maalinta la dilay waxa weeye markaanu aasimayno waxaanu soo qaadnay shalay baan soo qaadnay waxa weeye waxaanu keenay caynaba waxaanu la yiri hawsheeda ka soconaysa markaanu caynaba keenay wax talaagad waan ku weyn ambalaasna waan ku weyn gaari hadee xugmaayo waaraada oo aan anagu leenahay ayaanu kaga soo qaadnay meesha la yiraahdo gobolka magaalada Xangeeyo markaanu kaga soo qaadnay waxaanu ku keenay caynaba markaanu ka weelay ambalaas hadee xugmaayo ka weynay hadee xugmaayo talaagad ka weynayna kiibaan ku soo celinay halkaan ku keenay hal dhakhtarkan ay taala tadib xugmaayo waxaan doonay dhakhtarka burcay taala xalay baa la keenay xalay sagaalkii aynu halka keenay waxaanu doonaynaa
haddii ba xugmaayo sharciga islaamka in loo mariyo nolol dul waxaan leeyahay waa arrin bilaabmay waan u socon doonaa haddayna qof kasta oo arrinka ku kaca aan la xanuujin waxaana madaxweynaha iyo maxay ahayd ummadda islaamka baa ugu diraya arrinka inaan xeer reereed iyo xeer oday iyo caaqil iyo maxay ahayd guri toona la taginay maxkamadda la tigsado qofka islaamka ee wax dilana diintan waxay ku sheegtay in maxay ahayd la dilo marka naftii naf goysa si khaldan waliba goysa inta laba dil isugu dartay maxay ahayd dishay waxaanu cod dheer iyo codka ma ku diradanahay waan gobolka Togdheer in gacan bira lagu soo qabto waad aragtaan gabadhan yara ah oo la dilay oo la googooyay oo geed lagu riday yani damiirka islaamka cidna ma siinayso waa maydka sidiisa oo go'a ayaan ka naxnaa falkani ayaa noqonaya kii labaad ee sanadkan gudihiisa ka dhaca Somaliland iyadoo laga warsugayo go'aanka hay'adaha cadaaladda gobolka Saraar ay ka gaaraan falkaasi. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burco.